السلام عليكم. عرجيني caafimaad qabtaan. waa baartidii saddexaad qeysadii noo soo socotay. kooxda afduubatay injineer Cumar Siyaad Xadaraaya ay u ciqaabeen si uu uga jawaabo su'aalo adag oo ay ku xeeldheerayaal ka tirsan Mossad oo ku sugan Tel Aviv khadka maqal iyo muuqaal internetka ka weydiiyeen muddo 36 saacadood. waxa ugu muhiimsan ay doonayeen wuxuu ahaa inuu sheego luuqadda furayaasha ama wax afqalaad loo yaqaan core languageska. barnaamijkaas oo suurtageliyay inuu dhex galo nidaamka kombiyuutarka gantaalaha gumaystaha Israa'iil Iron Dome. sida uu u dhisay ama u hormariyay barnaamijkaasi sidoo kale barnaamijku uu adeegsaday inuu ku dhex galo telefoonada mas-uuliyiinta gumaystaha Israa'iil. ninkii Cumar la socday ayaa bilayska ku wargeliyay saaxiibkii la afduubay, halkaas ayayna sirdoonka Malaysia ka bilaabeen baaritaan. waxaase inay helaan injineer Cumar halka uu joogo ka caawis doorka Turkiga oo qudhooda xaalad dusha kala socday. MIT waxay la xiriirtay wakaaladda sirdoonka Malaysia magaceeda loo soo gaabiyo MSB, waxaanay ku wargelin halka lagu hayo injineerka, taasoo ciidamada ammaanka Malaysia u suurtagelisay inay soo badbaadiyaan injineer Cumar. saraakiisha Malaysia waxay ogaadeen in injineer Cumar ay wareysi la yeesheen xeeldheerayaal ka tirsan Mossad oo ku sugan Tel Aviv. marka laga tago su'aalaha la xiriira tiknoolajiyaddan, waxyaabaha kale weydiiyeen waxaa ka mid ah inuu xiriir la leeyahay ururka Xamaas, laakiin weli ma cadda in Israa'iil ay xog muhiima ka heshay injineerka iyo in kale. waxa kale oo ay MSB ogaatay qorshaha Israa'iil ahaa in injineer Cumar si qarsoodi loogu dhoofiyo Tel Aviv. MSB waxay sheegtay inay furfurtay shabakado sirdoon oo Mossad ku beertay dalka Malaysia, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen 12 nin oo u dhashay dalka Malaysia, kuwaasoo Mossad ay shaqaale siisay. inkastoo aan la arag wax raad ah oo muujinaya inay ka tirsan yihiin Xamaas oo uu taageeray injineerku, haddana Mossad waxay aaminsan tahay in injineer Cumar xubin ka mid uu yahay. dhowaan ururka Xamaas waxa uu shaaciyay inuu leeyahay inuu gaara u qaabilsan ammaanka iyo xogdoonka internetka, kombiyuutarka iyo guud ahaan tiknoolajiyadda cyber, kaas oo ay sanadii u dambeysay qarsoodi u adeegsanaysay raadinta xogta Mossad iyo guud ahaan Israa'iil. Al-Balbisi MIT ayaa xaqiijisay in injineer Cumar Al-Balbisi ay dib ugu soo celisay dalka Turkiga, ammaankiisana ay iyadu sugayso. dhinaca kale, MIT waxay sheegtay in magaalada Istanbul ku qabatay basaas kale oo lagu magacaabo Usaama Xijaasi iyo Raa'id Al-Ghasaal oo ka shaqeeyay shirkadda tiknoolajiyadda oo xiriir la leh Mossad, taasoo ay shirkadda Ghasaal sheeganaya markuu injineer Cumar shaqada u soo bandhigay iyo nin kale oo ka mid ah basaasiintii Mossad ee shaqada beenta u soo bandhigay injineer Cumar. baaritaanka sirdoon ee Turkiga ayaa sheegaya in la xaqiijiyay in Ghasaal uu ka tirsan yahay Mossad. labada eedaysana ay Istanbul u yimaadeen ila kuma injineer Cumar oo qorshe u ah inay shaqo u soo bandhigaan si ay kalsooni ugu beeraan. waxay injineer Cumar ku qanciyeen inuu sameeyo barnaamij iyagoo lacagta ugu shubay xisaab uu injineer Cumar ku leeyahay mid ka mid ah bangiyada dalka Masar. MIT waxa ay xog fiican ka heshay shirkadaha kala duwan ee injineer Cumar xidhiidhka la sameeyay, kuwaasoo la ogaaday inay dhammaantood yihiin shirkado ay adeegsato Mossad, waxaana la xaqiijiyay in Cumar hortii Mossad shirkaddan qudheeda u adeegsatay qabashad ay dabagal ku haysay. Mossad ayaa muddo dheer waday howlgallo qarsoodi ay ku khaarijinayso ama ku afduubayso dadka ay cadowgeeda u aragtay ku sugan dalalka adduunka, gaar ahaan Falastiinta. dalalka ugu badan ee Mossad ka ugaarsan waxaa ka mid dalka Malaysia oo ka mid dalalka qadiyadda Falastiin si weyn u taageera Falastiin badayna deganaanshiya u tagaan, laakiin ay Israa'iil aaminsan tahay inuu yahay dalka ay Falastiiniyiintu ka helaan aqoonta ugu badan dhinaca tiknoolajiyadda oo marka dambe ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil. habeelkaasi qisadeen ugu egtahay. haddaad jeceshahay inaad soo badina qisooyinkaasoo lamida commentiga hoose noogu soo sheeg. waana mahadsantihiin kulligeen.